soo dhawaada walaalaha Soomaaliyeedow weli waxaan halkaan ka sii wadnaa inaan muujino sidaan loo neceb yahay ma aha annaga inaan dad necebnahay ama iskuma baraarujinayno inaan necbaano dad qaas balse waxaan rabnaa inaan ogaano yaana jecel yaana neceb hadda ma fahanta soo marka halkan waxaan ku haynaa maanta video cadayna ummadda Soomaaliyeed sida loo gumaystay sida loo xoog loogu haysto sida maskaxdoodii dhan loo haysto baan tusayaa video halkan waxaa yaala wiil la yiraahdo magaciisa Muhyiddin Abubakar waxaan iska dhahano Muhyiddin Abubakar iska dhaadiyo Abubakar wax la fahmi karo malaagsan Muhyiddin Abubakar waa magaciisa xitaa waana laga qaataa abu anaga maliin abu hebel iyo abu heblaaye iyo hebel iyo sheekadaas anaga xagganaga ma aha okay soo marka wiilkan wuxuu ka qayb galayay UAV meel lahaa moogi adiga waxa weeyaan dagaalka feerka ayuu ka qayb galayay oo waxa la dhahaa Fight Star Champions Cup buu ka qayb galayay soo marka asagii wiil Brazilian ah sida idin muuqataba waxay xag u sikada sida idin muuqata asagii wiil Brazilian ah ayaa dhagta iska gadiyay wiilka Soomaaliga waa guuleystay soo marka wiilka Brazilianka calankiisa Brazil garabka u saaran laakiin wiilka Soomaaliga 12 calal baa u saaran garbaha u saaran 12 calal ana hadda waxaan ka cabsi qabaaba waxaan ka cabsi qabaa intaan idin sheegin 12 funaanadood buu wataa wax yar aan shida bal wax yar Ladies and gentlemen, on the three incredible rounds we go to the judges' scorecards. waan sii wadaynaa laakiin waxaan ka cabsi qabaa ma ogtahay dadka Falastiinka la yiraahdo adduunyada markay registration sameynayaan wax Falastiin la yiraahdo kama jiraan ma ogtahay wax Falastiin la yiraahdo ma jiraan wax Falastiin la yiraahdo ma jiraan registration markay sameynaysid adduunka hadaa rabtid inaad orodid hadaa rabtid inaad banooni ciyaartid hadaa rabtid feer hadaa rabtid inaad jaariyad furatid wax la yiraahdo Falastiin kama shaqeeyaan marka Falastiiniintu waxay isticmaalaan magaca Soomaaliga hadda kor waa idin sheegay masaajid dhan oo calanka Soomaaliya ku dhagan yahay iyo maqaayad dhan oo isku dhex taal yaa waxaan u galay inaan shaah ka cabo anoo marka transit ku ah magaaladaas meesha dhan waa Carab magaca Soomaaliga isticmaalayaan soo marka dad badan waxaa jira ku jira meelahan sida feerar kale oo magaca Soomaaliga isticmaalaya laakiin umada kala masuulka Soomaaliga waa Soomaaliya lana kuma fogaanayno oo magacana dad kale ma siino oo Soomaali baan leenahay okay Soomaali aniga ogaa waa madow laakiin ninka way gacdiya marka Soomaali baan leenahay okay ku soco marka waxa meesha aniga aan ku leeyahay waa lagu gumaystaa dadkan hadda aan tusayaa fiirso The winner by unanimous decision and still FC. Okay waa ujeedaa gacantiisa kor marka loo qaaday calanka Soomaaliya waa dhac kii kalena oo soo haray reactionkiisa fiirso ma jeedid macnaha wuxuu sii wataa dabaaldegiisii aan kugu soo celiyay marka waa kugu soo celinayaa okay si fiican ugu faham marka calanka Soomaaliga ku dhaco dabaaldegiisu sii wadanaya ma soo qaadayo wax yar meesha sila fiir Still FSC flyweight champion Mudir. Okay markii suunka loo xiray marka hadda calanka Soomaaliga uu dhacay run uu fiirshay maxaa yeelay calamo badan oo qoorta u surnaa marka arkay Soomaaliga inuu wax dhacayna isma problemine suunka markii loo xiray calanka xunka Falastiin baa dhacay waxa uu sameeyay fiirsan marka dadkeena waa la gumaystaa markan ku leeyahay waa meeshaan wuxuu sameeyay fiirsan marka And still FSC flyweight champion Mudir And still, and your brilliant runner-up the flyweight champion, Muhyiddin Abubakar. haye calankii kale ee ummadaha kale ee Soomaalida gumaysata markuu dhacay waa ka daba dhacaa asagina kii Soomaaliya markuu dhacayna xitaa wax yarna muusan u jaleecin kii ummadaha kale markuu dhacay waa ka daba dhaca uu soo qaaday iyaga dhan isku soo qaaday kii Soomaaliya qoorta surta kii kalena adduunka tusay kor u qaad qaadaysa suuleey
waxaan noqonay ummad la gumaystaan noqonay gumaysi ku jira ninkaas waxa hadda intaasoo calal xitaa funaanada Falastiin ma ugu qoran moogi xitaa funaanada ma aha funaanad waxa weeyaan oo wax si ka yihiin waa calan iyo wax ku qoran yihiin waa cunugaas laba mid waa waxaan sheegayo in Soomaalida la gumaysto oo gumaysiga lagu haysto oo ummada ay u raran yihiin oo haday banaan baxayaan ummada ay ku qasbayaan banaan bax haday meeshan joogaan lagu qasbay calalkan hadda ninka waxa laga yaabaa calalkaas uu qaadayo in mustaqbalkiisa feerka ilaa feer buu imaan mustaqbalkiisa feerka inay ka hor imaan inay wax u dhinto ya mustaqbalkiisa feerka inay waxa laga yaabaa dhibaato u geysato calankii buu tagtaagaya si fiican baa looga bogtay mar kale aan ku celinaya si fiican looga bogtay Flyweight champion, Mudir Abu and still FSC flyweight champion, Mudir Abu Bakar. And still, And your premier runner-up, the flyweight champion, Muhammad Abu Bakar, defends his title again for the second time here in London against a very credible and dangerous opponent, the Brazilian Jose Wagner with a 17-9-0 record. Muhammad Abu Bakar goes to 7-1-0. We had a stacked undercard and even stacked full main card. 4 title fights, 2 in the amateur division and 2 in the pro division. So Nathan Jones again get one up on Brad Wheeler. A good time from the deep. aad iyo aad waxaan u jeednaa calan funaanadu qaba xitaa waa calan kale funaanadu uu qaba xitaa waa calan kale weeyaan wuxuu qabaa calankiisa yahay haduuba Soomaaliya weey haduuba Soomaaliya ya Muhammad Abu Bakar odag Donald Trump aan soo xasuusto haduuba yahayba Soomaali waa kana dadkii marka waxaan sababta ay dhalinyarada dhan ay waxa keenayo gumaysiga ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed gumaysiga maalinkan ka qalin waxa maalin kasta aan aragnay dadkaanu waxay rabaan saas in ay u shaqeeyso sida adoonki haddii saa u shaqeeynin waxa weeyaan safarada kala raranaysa soo marka anaga waxaan u ololaynaa dadka Soomaaliyeed inay noqdaan dad madax banaan hadda ninkaas Ingiriisku joogaa wiilkaas Ingiriisku joogaa markuu wadankiisa ka soo tagay wuxuu yiri waxaan u socdaa wadan Ingiriis la dhahan socdaa Ingiriisku tag Ingiriiska deegeeda ma ahna dad ku nool Soomaa dad dhistay wadanka marka tagtid dad ku soo dhaweynaya dad ku diiwaan gelinaya dad ku dhageysanaya dhibkaaga dad maaragtay kula welcome soo dhawo wadan ku soo dhawo dad la wareegaya maaragtay noloshaada ka faala qaadaya ilaa inta shaqo bilaabaysid ku fududeynaya wax kasta soo marka adiga wadankaaga number 1 ku ahaado numberka labaadna wadanka dadka la nooshaa ku ahaado dadkaas ay arkaysid oo hadda la nool yahay Ingiriiska ayaga calankooda dhakada ka saari maayaan isagu wuxuu doorto isaga ku doorto hadduu calankooda qaatan waxay u sacabtumayaan hadduu kiisa qaatan oo sacabtumay laakiin ayaga calamo dhakada kama saarayaan soo marka dadka Soomaaliyeed waxa laga kirlaayay war wadamada aad imaadeen iyo wadankiina ku ekaada ya laga kirlaayay haddaad Ingiriiska joogto Ingiriiskaaga iyo dalkaaga aad ka imaad Soomaaliya isku wado iska dhaaf dadkan kale ku raranaya haddaad joogto Norway dadkaaga oo imaad Norway iyo wadankaaga isku wado waxa laga kirlaayay Soomaalida war dadka amartida u tihiin iyo dadkiina isku wata dadkan jino dhexdeen kaga jira waxa la dhahaa middleman ninka dhexda ku jira ninkan jino dhexda ku jira iska leexiye Soomaalidu waxay tiraahdaa toogsada lama toogsada taajirka loo tagaa war adinka dadkaad martida u tihiin wax la qaybsada waxa muhiimadu waxay tahay dadka amartida u tihiin ayaga wax la qaybsada ayaga gogol la dhigta ayaga wax la xaarta ayaga xukun wadankooda haddaan nacaysaan ooga taga haddaad rabtaan jooga ayaga wax la kala goosta waxa aan aniga meesha ka qeylnaa waxay tahay saddexeeye qof aan dalkiina lahayn adiga dalkaagina aan ka imaan inuu idin dhaxeeyo wadankii aad joogtay hadda reer marti u noqotid ka war reerka martiga u ahayd iyo adiga hadduu idin dhaxeeyo qof aan reerkan kamid ahayn martina aan ahayn hadduu idin dhaxeeyo ka war macquul ma noqonayso wax macquul ma aha soo adinkana ha u martiinina dad ayagaba soo galooti ah dad raba inay god in ku tuuraan ha u martiinina ya ma fahamtay hadda Soomaaliga ha u martiinina dadkaas soo marka iska daaya lana waxaan adag wadaan iska daaya maanta cid idin jaxan jaxaysa ma leh adinka maanta soo dhawaateen ma haysato soo wadankiina ma kala qaybsana
soo dadkiina ma kala qaybsana soo dhowr dowladood kuma jirtaan intii soo harteen soo intaa kala tagtaagan ma cidin ka warqabta male waxayna ku riyoonayaanba inay intirtaan waxay la yaaban yihiinba dadkan Soomaalida la yiraahdo ee geela badan geel hadda carabta haysto dhan Soomaaliya laga qaadaa carabta marka cunto maartay geel oo ama ku dhamaado Soomaaliya ka daldalataa waxa ilaahay mahadiisa Soomaaliya geelada ma dhamaanayo carabtu way qaadan geelana ugu quruxda badnaa way waliba qaadan waxa way meelay ku aroorin macluul baa ku dhicin xanuun baa ku dhicin geeli qaarna way cunaan qaarna way ka dhintaan waa baabaan soo wax garatay ma anaga laakiin noo jooga wali ilaahay mahadiis Australia sama geeleeda carabtu ma hunguriin karto Australia waxa jooga geelkan Soomaaliya laag ama kuwa weyn oo barwaaqa oo cidna aysan lahayn carabtu hal neef kama soo qaadan karto Australianku ma hadee dad la gaadi kara ma Australianku waa yaro ka tagay wariyaa adiga boqor gurigiisa galaas yaala say u soo gadanaya adiga boqorka gurigiisa galaaska yaala ma dhihi kartaa gaga adoo banaanka jooga waa may sama dhihi karaan ma dhihi karaanba meel ay u maraan meel dadkan Australianku lacag bay u baahan yihiin baahi ma geel u geenaysa inay gataan meel u soo maraan meel geelina naga gad iyo wajiga ku dhahan meel habiibi ay leeyihiin haday arkaan wax laga gadanayo leeyahay lacag haysan loo botaynayo Soomaalida oo geelada la qaadanayo Australia miguel baa ku yar carabtu kuma riyoon karto inay geel ka doontaan maxaa yeelay meel wajiga kula hadlaa ma yaqaanaan maxaa sheegaysaa animal rightska miyartayna ka wallahi billahi taala fiidiyaal badan baa halkan ka soo deyn doonaa oo ku saabsan in maaragtay dadka Soomaalida ay Israeliyaan dadka Soomaaliyeed ay cadawgooda iyo saaxiibkooda kala bartaan baan soo wadaa fadlan hadda halkan nala soo gaartay subscribe sar YouTube channel-kayga adoo mahadsan intaan muuqaalkan muuqaal la mid ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo